wuxuu dilay 37 qof kastana marka uu dilo wuxuu wacayay booliiska wuxuuna u sheegayay inuu isagu dilay dilaagan wuxuu aaminsanaa in dadka uu dilo ay aakhiro u noqon doonaan adoomo marka uu dhinto dilaagan wuxuu dilka bilaabay December 20keedii 1968 kaasoo uu ku dilay wiil gabar dhigtay dugsi sare oo lamaana ahaa dilkiisii labaad waxa uu geystay 4 July 1969 wuxuu sidoo kale weeraray lamaane kuwaasoo wada saarnaa baabuur kaasoo baakin ku jiray oo uu dul yimid wuxuuna ku tiriyay xabad wuxuuna wacay booliiskii isla isagii hadda ayaa wacay booliiska wuxuuna u sheegay inuu dilay 2 qof kuwaasoo uu ku dhex dilay gaari brown ah wuxuuna u sheegay goobta dilka wuxuu kale u sheegay in sanadkii hore uu 2 qof dilay iyo goobta uu ku dilay isla markiiba booliiskii ayaa yimid goobtii laakiin nasiib wanaag waxaa noolaa wiilkii oo dhaawac culus ah markii hospitaalka la geeyay kadib ayaa la weydiiyay sida uu ekaa dilaagu waxaana loo keenay waraaq si uu u qoro qiyaastiisa sida dhererkiisa culayskiisa iyo dhammaan sifaadkiisa kadib ayuu wuxuu sheegay in dhererkiisu ahaa 160 cm halka culayskiisu uu ahaa 88 kg wuxuu kale oo sheegay in calaamadan ay ku dhegneed calooshiisa qiyaas ahaan sawirkan ayuu ku qiyaasay inuu yahay dilaaga kadib booliiskii ayaa raadin badan ku bilaabay dilaagii markaas ayuu asna bilaabay in marka uu qof dilaba uu dharkiisa ku soo rido meel kadibna uu soo raaciyo waraaq mararka qaar wuxuu soo diri jiray waraaqada aan la fahmayn marna waxa uu soo diri jiray kuwa la fahmayo waraaq kamida waxa ku qornayd waan ogahay waxaad rabtaan inaad qol xiriiri ay ugu xirtaan kadibna aad dishaan laakiin aanu haddaan dhinto jannaan galaya dad ii shaqeeyana way ugu horeeyaan dadkaas wuxuu la jeedaa kuwii uu horay u dilay markii uu arkay inay booliiska aad u raadinayaan ayuu u hanjabay una sheegay inuu arday badan laynayo oo dhigata iskuul kamida kuwa magaalada haddii aysan raadinta badan ka dayn dilaagan ayaa laayay dad badan oo gaaraya 37 qof sanado badan ka bacdi waa la waayay booliiskana way ku guuldareysteen inay soo qabtaan kiiskiisu wuxuu noqday kiiska ugu caansan dalka Mareykanka kaasoo ilaa hadda si cad aan loo xalin waraaqadihii uu soo qoray waa kuwo qof kasta oo bartay dambi baarista isku daya inuu fahmo xitaa khubaro sirdoon ah ayaa fahmi waayay 2007 waxaa laga jilay filim qisadan kaasoo loogu magac daray Zodiac sanadkii dhawaa 2021 nin sirdoon u dhashay dalka Morocco haystana dhalashada France ayaa sheegay inuu ahaa ninka dambigaas geystay ninkan oo dhintay 2010 kaasoo mar dambi geystay la xirayna laakiin wali la iskuma raacin inuu yahay dilaaga saxda